Maanta oo Khamiis ah ayaa lagu waday in magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan uu ka dhaco bannaanbax lagu soo horjeedo dhismaha maamulka Hirshabelle ee ka socda magaalada Jowhar waxaana gebi ahaanba ka soo horjeestay ilaamaha ammaanka in bannaanbax uu ka dhaco magaalada Beledweyne. Taliska booliiska magaalada Beledweyne waxa uu faahfaahin ka bixiyay sababaha keenay in la joojiyo bannaanbaxa ay dadka reer Beledweyne ku muujinayeen sida ay uga soo horjeedaan halka lagu wado dhismaha maamulka Hirshabelle. Taliyaha saldhigga booliiska magaalada Beledweyne laba xidigle Maxamed Maxamuud Qorsheel oo warbaahinta kula hadlay gudaha saldhigga ayaa sheegay in magaalada Beledweyne lagu qaban karin bannaanbax aan ilaamaha ammaanka ka warqabin laguna soo wargelin sida uu sheegay taliyaha saldhigga booliiska magaalada Beledweyne. maanta ay taariikhda tahay 22 bishii 10aad 2022 waxaan warbaahinta iyo bulshada degan magaalada Beledweyne u wargelinayaa dhammaan in mudaharaad amba shir lagu qaban karin magaalada Beledweyne ayadoo la soo ogeysiin saldhigga booliiska degmada Beledweyne si uu u ogaado xaaladda amni oo ka jirto magaalada iyo waxa la qabanayo hadduu bannaanbax la sameynayo yahay bannaanbax nabadeed waa in la soo wargeliyaa booliiska uu la shaqeeyaa haddii bannaanbax rabsideed uu jiro uu la shaqeeyaa ummadda booliiska mar kastaba uu la shaqeeyaa inaysan ka dhicin hotel cidii ku shiraysa waa in booliiska soo wargelisay tiraahdo saasaan wax u rabnaa waxaan u digayaa ummadda degan magaalada Beledweyne ama ganacsatada ama dhaqameed ama siyaasiyiinta inay booliiska soo wargeliyaan cidana booliiska soo wargelin oo hay'adaha amniga soo wargelin oo magaalada shaqo ka dhex qabsato in tilaabo sharci ka qaadi doono amniga magaalada anaka mas'uulkii magaalada anaka in wax walba kasta magaalada wax laga dhex qabsado oo shirar lagu qabto oo ka war hayno ma suurta galayso waxaan ugu digayaa ummadda cid kastoo samaha jecel inay booliiska soo wargelisay booliiska iyo amniga xabba ma haleeyaan waa inuu ogaadaan waxa laga shaqeynaa qofka wuxuu dhibaayo waa inuu la soo wargeliyaa warbaahintan way maasiin boqolkiiba boqol waajibaadka ay qabsadeen iyo waajibaadka markaas u taagan ayagana u mahad celinaya assalaamu calaykum mudaharaad systemka dawliga ah oo amiir Hirshabelle ama federaalka dad wax ka tabanayo hadii ay qabanayaan ma loo fasaxayo ama mudaharaadka cid kasto ama mudaharaad mid federaal ah ama mid Hirshabelle ah cid kasto wax tabanayso waxay xaq u leedahay in booliiska soo wargeliso tiraa waxaan u baahanahay sidaan u rabaa loo fasaxo mudaharaadka maanta waxa loo joojiyay mudaharaadka loo joojiyay ma la ogeyn cid wuxuu ka shaqeeyaa iyo cid uu soo wargeliyay ma jirin xaalad amni awgeed loo joojiyay dad xirxiran oo la soo qabtay inay jiraan ayaa naloo sheegay maxaa ka jira oo mudaharaadka dadkii wada kamid ah ma dad xirxiran ma jiraan hore oo meel markaa ka soo saarteen bannaanbax ku saabsan in magaalada lagu qaban karay hadda ma ka soo saaro ama magaalada in bannaanbax lagu qaban karay ayadoo amniga la soo wargeliyay hadalka laamaha ammaanka ayaa ku soo beegmaya xilli maalinimadii shalay ahayd degmooyin ka tirsan gobolka Hiiraan uu ka dhacay bannaanbax lagu soo horjeedo dhismaha maamulka Hirshabelle. Cabdiwaaxid Maxamed Aadan, warbaahinta Shabeelle, Beledweyne.